markuu sidaa u caayay rasuulkii asxaabta Auf ibn Malik baa dhageysanayay ninka kadibna uu hadlayo Auf ninkii buu la hadlay wuxuu wallahi munaafiq baat بأن نوات شكت منافق نوات يقول وركاغنا النبي قالوا شيء عليه الصلاة والسلام كذبنا وركي النبي قارسيي بركي لو يدينا وحول ده كفتن باهي طريق دير با لغو جيرو طريق قاسان اسكو دافينينا waa madadaaladii ma wuxuu ku keenay haasawihii iyo madadaaladii dhaxdayadu ku soo waariday uu khaldamay sheekay iska ahayd ma ahayn ay aan kula qastiyay nabi Allah marka waa de kaftankiibu maarad uu qaldamay ilaahay baa quraan soo dajiyay qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum ilaahay baa wuxuu yiri ma ilaahay iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisa ayaa ku dheeldheelaysa waa gaalowdeen waxba cudur daaranin qad kafartum ba'da iimanikum inta shahaadateen kadib gaalnimo u baxdeen marka ayadu waxay cadaysay la ninkani wuxuu markaa ilaahay mabuucaayna wuxuu caayay rasuulkii asxaabta marka caayidii rasuulka ayaa waxay noqotay inuu ilaahay caayay subhanahu wa ta'ala halka waxay aayadu ku cadaysay dab iyo dheeldheelba hatta kaftamaya qof waxa dacaydeynay ha iska jeesjeesay sida dadkeenu kana yiraahdaan waa alla kood oo hadalun buu iska tuurtuuraa inuu ku gaaloobayo qofku ayaa culimada islaamka ee mufassiriintu sida ay sharxayaan ay ka waramayaan imaam al-Qurtubi rahimahullah markuu sharxaya aayada waxa uu leeyahay la yakhlu an yakuna ma qaluhu min dhalika jiddan hazilan wa kayfa ma kana kafara ama dhab ha ahaato ama dheeldheel ha ahaatee labada jeerba erayga gaalnimada ah qofku islaamka uu kaga baxaya taas waxa weeyaan qofkii muslimka sheeganayay oo nabiga caaya calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay caaya oo diinta caaya walow kaftan ba ahaato halkaasa qad kafartum ba'da iimaanikum billahi kii muslimka aha cidu doonaya ha ahaado wad gaalowday baa ilaahay waxa